gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo caawa xilli dambe ku qabtay shir jiraayad guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu daboolka ka qaaday inuu la mowqif yahay xisbigiisa isla markaasina uu gabi ahaanba ka soo horjeedo saldhigga military ee xukuumadda Soomaaliland ka siisay magaalada Berbera waxa sidoo kale uu ugu baaqay golaha wakiilada ee Soomaaliland inaanay ansixin heshiiskaasi sidoo kale waxa uu sharci darro ku tilmaamay in baarlamaanka Soomaaliland maalinta berrita la horkeeni doono heshiiskaasi dhaxal uga tagayna caruurteena dhaxal xun baynu uga tagaynaa waxa kale oo inta dheer saldhigu wuxuu yeelan doonaa saameyn colaad inoo keenaysa waxaynu ka warqabnaa dalka Yemen iyo Soomaaliland waxay isu jiraan 90 kilomitir ama 90 mayl dayuuradaha waxaynu ka warhaynaa dalka la siinayo saldhiga inuu dagaal kula jiro dalka Yemen waxaynu ka cabanaynay Soomaaliland berigii siyaad bare in dayuurada inagu garaacayo marka dayuurada ka kaca Berbera ee soo duqeeyay Yemen waxaan xaqiiqa inuu jawaab colaadeed ka heli doono taas oo aan nabadgelyada Soomaaliland ku faanayso iyo dalkeenaba khatar gelin karta haddii intaas oo dhan la iska dhaafo heshiis horta ma jiraa in isweydiinayna inkasta oo shirgudoonka labada aqal madaxtooyadu u sheegtay inay golayaasha keenayso heshiis ay la gashay dalka Imaaraadka Carabta wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland wuxuu cadeeyay inaanu jirin haba yaraatee wax heshiis ah oo ay wada saxeexdeen jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxa isweydiin leh maxaa berri golaha la keenaya oo golayaasha la keenaya balaad bagaro waxay la tahay way iska soo bixi doontaa eesh qiyaasak waxa ka soo bixi doona halkaas fadhiga wada jirka ee labada gole dastuurku wuxuu cadeeyay qodobka 8 faqradiisa 6 waxyaabaha labada gole la isugu iman karaan ay fadhi wada jira ka yeelan karaan heshiis xukuumaddu la gashay dal kale kuma jiro waxyaabahaas markay heshiis noqoto ama ansixin waxa dastuurku siiyay golaha wakiilada sida ku cad qodobka 53 faqradiisa 3 waxa ka warqabtaan dhammaan wixii ansixina waxa iska leh golaha wakiilada haddii miisaaniyad tahay haddii wasiir tahay haddii heshiis tahay tixgelinta waxaan ku tixgelinay oo kaliya waxa weeye fadhigaas in madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland soo codsaday in labada gole uu la kulmo taasi fadhigani runtii wuxuu khilaafsan yahay procedure-ka ku xadidan dastuurka ee golayaasha ku shaqeeyaan walaalayaal taasi waxay noo sheegaysaa sharcigu inaanu guurin ee laakiin dadku guurguuro waxay u eg tahay inaan indha isku qabad hebed u noqonay haddaynu nahay baarlamaanka Soomaaliland fariinta xildhibaanada aan u dirayo mudanayaal maanta xilku idinku saaran yahay waajibaadka baarlamaanka waxa ka mid ah ama baarlamaanadaba inay xukuumadda daba galaan wixii ka xun toosiyaan inay ku shaqeeyaan dareenka dadka shacbiga ay matalaan waxay la tahay maanta berrito ama magac baydun qaadan ama naanays xun baydun qaadan oday xakiim oo golayaasha ka tirsanay wuxuu beri hore isagoo la dardaarmayo golayaasha ku yidhi caloolla waa leedihiin caqlina waa leedihiin maanta waxaan leeyahay caqliga doorta kala xadaynta awoodaha waaxyaha qaranka waxay la tahay inaynay qarsoonayn in maanta waaxyihii kale qaranku ay xukuumadda u nuglaadeen hadday yihiin garsoor hadday yihiin sharci dejin waxaa ka warqabtaan in maalmahan dhammaan xubnaha golayaasha labada aqalba reer iyo qofba madaxtooyada loogu yeedhayay
iyagoo laga codsanayay heshiis aan jirin sida wasiirka arrimaha dibadda sheegay in loo ansixiyo baarlamaanka laftigiisu wuxuu u baahan yahay meelaha shacbiga uga baahan yahay reer Somaliland gurmad waxaan shacbiga ugu baaqayaa in baarlamaanka uu soo gurmado. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرحمن محمد عقيل تلفزيون كسم نيوز تي في مقالة هرقيساء.